haddii ay kulmaan salaada ciidda iyo jumcadu ma midkood baa dhacaysa oo ta kale meesha ka saaraysa ama sida qaarkood ka cabireen duhurku waa fasax arrin saxa maaha maxaa yeelay duhur shanta salaadood ee habeenkii iyo maalinta laynagu waajibiyey ayaa uu ka mid yahay wejiga quree uu ku dhacaa ilamaa masaladan shaadka ah mooyaane biijmaaci ahlilcilmi waa duhur inuu bedelo laakiin inta jumca meesha ka baxo duhurna inuu meesha ka baxaa wax la yaqaan maaha tuulooyinka jumcada laga oogo oo kale imanaya hadhowna dib isaga noqonaya si ehelkoodii ula ciidaan iyo dadka masalan koonayaasha magaalada iyo jooga hoteelada iyo meelaha raba inay isaga baxaan oo halkooda nafis iskaga qaataan ciidda way haystaan ruqso ay jumcadii kaga baaqdaan oo bedelkeeda duhur ay tukadaan bulshadu masaladaasi waxba mugdi iyo ishkaal ay ku keenin inay labadaba tukadaan baa u fiican taasi baa wanaagsan cidda ruqsada qaadata ee waxa weeye jumcada marka bedelkeeda duhurka tukata siba meelaha yara durdurugsan ay mashaqada ku tahayna dhibaata kuma jirto bismillah alhamdulillah wa thanaa'u lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd ikhwani fillah su'aasha soo noqnoonaysa maalmahan ee oranaysa haddii ay kulmaan salaada ciidda iyo jumcadu ma midkood baa dhacaysa oo ta kale meesha ka saaraysa waxaynu tilmaamaynaa salaada ciiddu ama ciid alfitri ha noqoto ama ciid aladxaa ha noqoto waa ciiddii sanawiga ahayd ee sanadkii mar dhacaysay salaada jumcaduna waa ciiddii usbuuciga ahayd salaadeedii iyaduna wiigiiba mar dhacaysay labadaas salaadood midda kale ma ridaysaa ahlulcilmigu waa ay ku kala aragti duwan yihiin waana mas'alo keensanaysa ijtihaad ahaan in loogu kala aragti duwanaan karo oo masalo khilaaf iyo muran beeri karta ma aha sidaa daraaddeed waxa weeye ahlulcilmigu aqwaal dhowra bay ka leeyihiin laakiin waxaa ugu xoog badan laba qowl qolada tidhi midina midda kale ma ridayso oo qowlka jumhuur ahlilcilmi culimmadu say u badan yihiin ah iyo qolada tidhi maya ee ciidda markaa tukata ee masalan jamaacada ku oogta tan kale ee jumcadu way ka dhacaysaa oo beddelkeedii duhur ayay tukanayaan labadaa qowl baa ugu xoog roon oo mas'alada ku sugan waxaana khilaafku uu ku wareegayaa axaadiista nebiga ka soo aroortay sala allahu alayh wasalam ee tilmaamaysa in nebigu uu tilmaamay in jumcada uu isagu jumcaysanayo laakiin ciddii ciidda la tukatay ay ruqso haystaan oo aanay markaa jumcada ka baaqan karaan iyo aahaarta ka soo aroortay saxaabada sugnaanteeda iyo xooggeeda iyo in waxa weeye arrintaasi aanay sugnayn khilaafka xooggiisu halkaasibuu ku wareegaya marka runtii waxaynu leenahay waa mas'alo la isku khilaafi karo lagu kala aragti duwanaan karo ijtihaad geyeysa mana aha masalo khilaaf iyo culays iyo dhib keenaysa waxaana fiican marlayba qofku labadaba inuu tukado si uu khilaafka uga baxo mar kastaba waxa fiican labada salaadoodba inuu oogo waayo waa khayr iyo wanaag laakiin haddii ay ku keenayso nooc maa culays sida dadka tuulooyinka jumcada laga oogo oo kale imanaya hadhowna dib isaga noqonaya si ehelkoodii ula ciidaan iyo dadka masalan koonayaasha magaalada iyo jooga hoteelada iyo meelaha raba inay isaga baxaan oo halkooda nafis iskaga qaataan ciidda way haystaan ruqso ay jumcadii kaga baaqdaan oo bedelkeeda duhur ay tukadaan marka waxaanu tilmaami lahayn
صلاة الظهرية مرنا بماشا كبحميسو قول كأورانا يوي كبحيسانا وقول مركا إسكاشاد وهل العلم وأي كنت المامين اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاق السعودي وخلائي أهل العلم خلباء إنه يهي قول لقيه جرودي وأنا اعتبار لهين محايا لي قول كأورانا ولا بعيدود أو مدهان ولا جو كأفتومية وقول مركز تحقلين تيسا يقيمين تيسا له قول كأورانا جمعادو waxay bedel ka tahay shantii salaadood ee la yaqaanay oo maalinta jumcaha ana duhur bay bedeshaa inta kalena halkeeda duhur baa jooga marka midda kale maridaysa oo ah qowlka culimadu u badan tahayna waa qowl la fahmayo meesha uu cuskanayo iyo xoogiisu uu aad u weyn yahay ama in la yiraahdo maca duhurkii baa meesha ka baxaya ama sida qaarkood ka cabireen duhurku waa fasax arrin sax ma maxaa yeelay duhur shanta salaadood ee habeenkii iyo maalinta leenagu waajibiyay ayaa uu ka mid yahay wejiga qure uu ku dhacaa ilama masaladan shaadka mooyaane biijmaaci ahli ilmi waa duhur inuu bedelo laakiin inta jumca meesha ka baxo duhurna inuu meesha ka baxaa wax la yaqaan ma ومدة كلا وحان لبا اسكو هاينين maalinka ay ciida iyo jumcadu kulmaan bulshada qaybtu kanaysa duhur inay jirtana waa bil ijmaac ama han noqdeen kuwa aan ciida tukan ama kuwii aan awalba ku waajibaynin han noqdeen waxa kala aanay laba isku haynin shariicada inaanay ku jirin salaad laba salaadood ridaa salaad waa lagu bedeli karaa sida jumcada iyo duhurka oo kale laakiin salaad laba ka markaa salaado isaga dusayso ridaysa ma jirto oo haddii la yiraahdo مثلا markaad ciidii tukatay salaadii kale ee jumcadu iyaduna meeshii way ka baxaysaa bedelkeeda duhur baa tukanaysa waa la fahmaya laakiin ciidii jumcadiina iyada riday duhurkiina iyada riday shariicada ba nadiir kuma laha ama wax u dhigmaya ma jiraan masalo ama salaad ridaysa laba salaadood ma jirtaba marka taanay taasi jirin maantana halkan jiri mayso marka waxaan leenahay bulshadu masaladaasi waxba mugdiyo ishkaaliye ku keenin inay labadaba tukadaan ba u fiican taasi ba wanaagsan cida ruqsada qaadata ee waxa weeye jumcada marka bedelkeeda duhurka tukata siba meelaha yara durdurugsan ay mashaqada ku tahayna dhibaata kuma jirto dhamaanteen ba xaqa Allahina waafajiyo wallahu subhanahu wa ta'ala